طبعا سيفتو كروك على ورا سيديغوف تتوقف أفرغف سدح غف سدح لا بقف هل I am the one, your son don't need a gun to get respect up on the street. Slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll go show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسود هذا channelka حديت أمر كورين لك أصلا بقتنا فضلا سبسكرايب وينو مهم إن أصحابتا وحان توا هالكن إن أوهم بلي رمتي نين إن سأصارتين تايتولك أما سأصارتين فيديو أهري نينك أديك دوال دقايو سيال بقول أوكي أيو مدحك حريمان تحلي هم بين بركوات هنا هانتي أنا عايش ويدي أنا أصلا صمرة أسمناه مركا waxaan ka wada kulma faanteen wax walba loo jabhadeeyo wax walba oo runtii loo soo samro wax walba oo runtii xaloosh u soo xiratid ugu dambeyn waxaan noqonay mid macnaha ka gulgaara miimadeedu waa taas wax kale ma aha ha noqdo macnaheeda ma ahan qofkan sagaal boqol oo kiis ku gaaray wuxuu ku gaaray waqtigiisa u horay la yaabo in ana kala markii asaga uu YouTube ku jiray sawirkan sa arkaysaan oo markii la dhihi jiray mustashar cadde oo ma milyan ugu dhignaan jiray ninka odayga waa 2014 meelaha sanadeeda maana ugu dambeyn horta uu caga dhigtay hadafkiisa ugu weynayna waxaan dhihi karaa uu gaaray walow safarka uu dhiman yahay wax ka yar bil gudaheeda waa asaga hadafkiisa waxa waa inuu gaaro 1 milyan sida ninka odayga ee tartamaan ee master CK sala socon dhamaanteena laakiin tartanka waxa ku soo biiray nin la magaciisa Astaxajiyo team 27 naftooda waxaan leeyahay hambalyo wada fiican ay hayaan runtii in la arko shakhsiyaad Soomaali ah oo macnaha group waa aragnay oo milyan gaar markaas u fiiris laakiin qof oo individual ah sida CK camal waa individual hal qof kaligiis ah oo YouTuber ah am fanaan ha ahaado ama shactiro ha ahaado odayaxayo waa soo samray ugu dambeyn waa gaaray walow runtii juhdi badan naftiisa uu Idris Cabdi ka yaraysanin laakiin waxaan dhihi karaa hadda tartankan aan arkayno waxaa madax isku jiro oo final isla gaari doona Astaxajiyo iyo Idris Cabdi Sandareemay walow CK naftiisa video uu soo dhigay 2 maalin ka hor aan ka dhamiyay inuu doonayo in Astaxajiyo uu adeeg ka hormaro laakiin may uu rabay inuu Astaxajiyo ka hormaro laakiin ugu dambeyn uu garaawsaday uu dhahay ninkana ka soo macna wax badan soo samray laakiin markaas uu fiirisdana Idris Cabdi uu gaari karay 1 milyan kol hada laakiin waxaan dhihi karaa waxa u diiday laba waxyaabood koo waxa u diiday subscribe-kiisa uu qarsaday waa subscribe marka qarisid aad tartan ku jirtid waxa laga yaabaa asxaab badan oo adiga ku jecel ama fan ku ah wax walba ha ahaadaan inay dhahaan okay ninkii milyan intan ugu dhimana aan bush garana camal laakiin mar hadda xiratay meel ay mareys maloogo laakiin ugu dambeyn 2 isbuuc ka hor 3 isbuuc ka hor u furay sababta ugu weyn u furan waxay ahayd in YouTube sharciyadan cusub uu soo rogay oo 29 maanta ah ugu dambeyn qof walba uu subscribe-kiisa qarin doono markaas u fiiris muhiimadda ugu weyn oo YouTube macnaha aan video duubayo waxay tahay qof walba oo dadaalo macnaha markaan nolosha hadafka leedahay hadafka asaga ah hadaadan ka harin ugu dambeyn waa gaaraysaa that is a major point aan macnaha video u sameynayo waxaan tusaale nooga filan qof walba hadda bal dagay marka aad ama ha ahaa saarkaysan videoga Idris Cabdi ama qof walba ha ahaado am CK aad naftiisa 1 milyan u daldaga maxal dhihi jiray Astaxajiyo aragnay dad doona Soomaali waa aragnay oo macnaha markay xiraan 100 200 300 u daldagayo way waxay leeyihiin hadaf nimadeedu waxay tahay marka hadaf leedahay hadafka aad leedahay ka mir dhalay ilaa akmir dhalsina ha ka harin wax walba caqabad ama challenge ah oo ka hor imaado ina u samirtay ayaa loo baahan yahay waayo haddii caqabad yar ka hor imaato caqabad ayaad aragtid inaad ka gudbi karin
ashtadniyo waxaan caqabad badana waxaan waa dhib badan yahay mawadi kari macnaha safarkan safar dheer waayo macnaha challenge walba ay arkaysaa ha ahaada mid adig kale ku kooban ama ha ahaada mid oo lagu qabo tusaalahan hadda social media marka la rabo in magac laga sameeyo whatsoever ama lacag laga sameeyo hadda YouTube inta badan dadka kuda jir inta badan wuxuu ugu badan ay u sameeyaan waxay tahay magac iyo lacag wax kale maaha marka waxa laga yaabaa marka ugu horeyso qof walba oo caan ah marka wareystid ama weydiisid ama soo hadla aragtid waxyaabo uu ka hadla inta badan waxay tahay caqabadii uu soo maray markuu bilaaw ahaa ugu dambeyn asaga ayaa hadda la raadsanaya laakiin caqabad kasta uu ka soo gudbay oo ku saabsaneed oo ka hor istaagi kartay hadafka uu lahaa marka waxaan dhihi karaa runtii ninkan odayga hadda arkayna dabaaldegaayo dabcan walow markuu YouTube bilaabayo dad badan oo YouTube xiisanaya aysan jirin laakiin qasab challenge uu soo maray waa la soo caayay waa la soo aflagaaday wuxuu yahay iyo wuxuu ahayn waa lagu sheegay ugu dambeyn runtii wuu gaaray hadafkiisii jaranjadiisii midii hal mid u dhiman laakiin meeshii ugu muhiimsan hadda wuu gaaray waayo dadka inta badan markay arkaan ninkan oo 900 xiray 100 miis u dhiman tahay waxa laga yaabaa in la buush kare la riixo la okay hal gaarsiyo ugu dambeyn laakiin jaranjarada ugu dambeysay maraya waxaan rajaynayaa inuu gaari doono asaga iyo inta la midka ah waayo markay video bilowgiis aan dhahay ani asiga ilaahay oo simanaa ani asaga macnaha dad Soomaaliyeedana waxaan ka wada wax kale ma ahan laga yaabo in qof kasta isleey waxa niyadda ku jiro iyo qofkan 900 ku gaaray qofkan wuxuu soo maray qofkan caqabad la soo kulmay macnaha waa wax iska cad markaas u fiiris adoo YouTube kali fiirinin waxa fiirin kartaa nolosha kaleeto inshallah marka islaada maanta wax samee ama guri dhis ama shaqo raadi ama talaabo kala qaad waxa arkaysaa guri hadda leedahay ayaan dhisanayaa guri asaga waxa ku laga baahan yahay in la imaatid basic waxyaabaha asaasiga ah wixii aas marka la imaanaysidna wax walba waxay u baahan yihiin macnaha maxaa la jiray waxa fahmi kartaan oo kamid tahay dhaqaalaha lamboonka dhaqaale wuxuu u baahan shaqada wuxuu u baahan tahay inaad u samirtid inaad u dulqaatid inaad raadisid mar waa lagu siinaa mar ma lagu siinayo macnaha caqabooyin kamid yihiin nolosha waa wax walba aad sameynaysid caqabada leedahay marka waxaan dhihi lahaa asxaabta caqabad walba oo aad la kulmaysaan ama aad la kulmayn dhammaanteennaba aan isku dayno inaan u dulqaadano caloosh u xirano ugu dambeynna waan ka malgaareynaa sida hadda ninka odayga arkaysaan waxaan kaloo rabay inaan ku daro 3 waxyaabood oo ku saabsan Idris Cabdi oo hadda marxaladda hadda uu ku jiro ee koob ka tahay hadda wuxuu ku jiraa marxalad uu soo maray ninka la magaciisa CK dhowr sano ka hor sanad iyo bar sanad ka hor ama 2 sano ka hor aan rabo caqabadaas oo ah in mar haddii macaar samaystid lagugu kaco waxa laga yaabaa in isweydiiso aadid iyo macaardan samaystay waa lagugu kacay bulshada dhan kugu soo jeesto macaaradka YouTube lay badan oo ay reaction badan ka soo bixinayaan ay runtii ka faa'iideysanayo marxalad adag hadda ku jirtid marka asagana waxaan leeyahay ta ayada ah waa laga gudbayaa waana gudbaysaa asxaab badan oo ku jecelna galbeedka ay taagan yihiin ugu dambeyn waxna ku doontaa shakhsi guuleysto waa haddii asaad u samartid laakiin qofka haddii uu niyad jabo dismoral noqdo oo isdhahaniyo dadku ka hor imaadeen talaab qaadi kartid waxa laga yaabaa in qofka aad ku macaaradayo inuu guushi uu rabay uu gaaray laakiin hadduu arko qofka in aad soo jeedid mar walba wuxuu isweydiinayaa qofkan wax walba ku dayday uuna soo jeedaa magadan faraaska yaqa marka waxaan dhihi lahaa asaga iyo inta la midka ah ee dhammaanteenaba caqabad walba oo naga hor imaanayso aan dul qaadano caqabad walba oo naga hor imaanayso aan samirno adigoo fiirinayo macnaha maxaa la dhihi jiray aan ka boodeynin wax walba oo xadidan oo diiniin ah iyo dhaqan ahaan markaas u fiiriso waayo qofka inuu bulshada la soo horfadhiisto wax bulshada dhaawacayo ama diintiisa ahaado ama dhaqankiisa ahaado ama iimaankiisa ahaado ama macnaha mustaqbalkiisa ahaado siiba gabdhaha inta badan wax fiican maahan waayo gabar hadday maanta is dhahdo caanimo raadi caanimadii ama dhaqaala ka samey social mediaha caqabada horyaalan buwan waxay ka mid tahay maxaa la dhihi jiray in looga faa'iideysto baahida ay qabto marka baahida marka laga faa'iideysto waxa laga yaabaa baahida ay qabtay inay ahayd muddo kooban laakiin magacaaga uu dhaawacayso noloshaada inta ka dhiman wixii aad samaysay marka inkastoo hadda social media inta badan qof walba aad weydiisid waa inta badan waxaan aragnay gabdho badan oo social media ku jiro oo runtii sameynayo wax dhaawacayo diintooda
wax dhaawacay dhaqankooda wax dhaawacay dadnimadooda marka sii fiirisid waxyaabaha ku kalifaayeen waxa kamid ah bulshadii ayaa waxay noqotay xumaan raadis inta badan waayo waxay daawanayaan ama raadinayaan wixii xun qofka dumaanta qaal rasuulala imaado waxa laga yaabaa in waa arrin hadda YouTube u fiirsada culimada inta badan markay soo gudbinayaan maxaadarooyinka wacdiga wax walba diin ku saabsan waxa ka daawasho badan hal hees u sharan bay soo qaaday ama ilkaas qay soo qaaday sal ahaan marka waxyaabaha keenayna waxa waay bulshada ay waxay u badatay inay xiiseyso waxa macnaha wax walba wixii ka sii xun that's why inta badan dadka social media ku jira gaar ahaan gabdhaha ay ul imaanayaan wax walba wixii ka sii xun waxaad leedahay gabar asturan عشان كو اوجت استرن حجاب حنانات اي حاجه مانتا ايدو قابنا waxa keenay waxa kamid ah lambuwan saayni sheegay inay aragtay caqabadaha ka hor imaadeen ee isku dayday inay magac iyo dhaqaale ka sameeyso social media ayadoo asturan laakiin bulshada ku soo xirmaysa ama caan noqonaysa laakiin hal video oo dhaqan xumo ah ama ayadoo nooc kale haday sameeyso waxa laga yaabaa inay malaayiin ku soo xiranto ha TikTok waxaan ku arkay inta badan gabdho badan oo runtii in hadda magac qaad xamu sameynaysa laga xataa sheego haddaan micnaha qeex waxa laga yaabaa fahantaan hal mar ay soo galayaan markay soo galaan waxa arkaysaa iyadoo daawanaysa oo micnaha 10,000 15,000 20,000 30,000 tii maxaadarinaysa asturada waxa laga yaabaa inaad daawanayso laba micnaha 2,000 ama 1,000 ama waxba markaas u fiirisid fiidiyoyasha kaleeto oo xun oo dhaqan xumada ku saabsan ama wax walba hadda waxaan arkay in naagis qabo I think in American joogan oo dhalinyaro ah waxay ka hadlayaan markay fiiriso waxay leedahay kuwa muslim ah miya Soomaali iska dhaf dadka daawanaya ee ku xiran waa dad aad u fara badan oo sugaya oo heegan ugu jiro marka aad fiidiyoyasha aragtina way kala badan yihiin fiidiyoyasha kale wax keenay waxay tahay bulshada waxay u baahatay wixii xumaa marka waxaan dhihi lahaa aniga hadwaanada ku soo koobi lahaa laba waxyaabood oo kamid tahay in aan ka waantoon waxyaabahaas number 1 number 2 na challenge walba oo ka hor imaado marka wax sameynaysidna runtii isku daydid inaad qaab u gudubtid qaabkii rabta ahaato adigoo ka tagaynin dhaqankaaga iyo diintaada intaba asxaabta jillaan inta soo gabagabeena inta saacaduna waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambaliyo waan arkayna cid guuleysata asaga iyo team 27 tartanka waa adag yahay anigana dee subscribe ta iga maamina